barnaamijkan waa kii saddexaad aan idiin soo gudbinayno maantay qodobada barnaamijka waxay ku saabsan yihiin warar soo dhacay intaynu kala maqnayn xuutiga oo war cusub ka soo saaray xiisadda kala dhaxaysa Sacuudi Arabia xilli berito ay tagi doonaan dalka Sacuudiga madaxda ugu sarreysa dalka Pakistan oo heshiis difaac uu kala dhaxayo Sacuudiga haddaba sheeko ku saabsan arrinka waan idiin soo gudbin doonaa haweeney dhowr iyo 40 sano jir ah ayaa magaalada London bartankeeda dad marayay toorey nagta kaga saartay haddaba xaaladda warkaas iyo xaaladda guud magaalada London hadda sida ay tahay wararkii ugu dambeeyay ayaan idin hayaa waxa soo kale barnaamijka aynu ku soo qaadan doonaa Mareykanka oo sheegay cunaqabatayn horay u saarneyd inay ka qaadeen maanta 3 shirkadood oo la sheegay inay la shaqaysan jireen oo ay xiriir la lahaayeen ciidanka ilaalada kacaanka Iiraan talow Mareykanku muxuu sirsiranayaa muxuu ka doonayaa Iiraan cunaqabataynta uga qaadaya shirkado uu horay Iiraan darteed u saaray haddaba sheekooyinka iyo isgaadgaadkan ka jira bariga dhexe aynu barnaamijkeena caawayna ku faahfaahin doonaa meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada barnaamijkeena habeennimo waa habeennimo Arbaca Khamiis ay soo galayso taariikhduna waa 5 bisha 8 2026 warar muhiim ah ayaa inoo soo socda oo ay ku jiraan magaalada London bartankeeda oo dad marayay nagta laga saaray iyo warar kale hase aatee waxaynu ku bilaabaynaa xiisadda iyo colaadda u dhaxaysa xuutiyiinta iyo Sacuudiga oo war cusub oo ka soo kordhay haddaba xuutigii ayaa caawa war soo saaray intayna warka xuutiga u gelin waxaan dib idinkugu celinayaa inaan maanta barnaamijyadeedii ku soo qaatay in ay u socdaan berito Saudi Arabia labada nin ee ugu sarreysa Pakistan ra'iisul wasaaraha iyo taliyaha ciidamada waxaana jira heshiis difaac oo u dhaxeeya Sacuudiga iyo Pakistan haddii labada dal midkood la weeraro kan kale inuu difaacayo dagaalka galayo haddaba Sacuudiga xuutiga ayuu dartiis ayuu ugu yeeray labada nin ee ugu sarreysa Pakistan haddaba Pakistan ma gali doontaa dagaalka mise dhanka Iiraan ay ka soo mari doontaa oo arrinta waa la dejin doonaa oo la xallin doonaa oo arki doonaa berito laakiin xuutiga wuxuu u jeedaa waxa socda wuu sii sheegaya wuxuu leeyahay Pakistan ma naga kiin celin karo annaga Mareykan aan qarramsanay oo gacmaha taagay meeshaan ka cararay waxaan idiin sheegaynaa oo caaw war kale soo saaray xuutiga oo fiirsada Sacuudiga baxar ku jira dhiiqo lagu halan galay Sacuudiga waxa leeyahay waa ku ognahay maraakiibtaada waad kala carartay baabal mandab dhanka iyo Masar iyo dhulka inaa sii marsiisato ayaa rabtaa iyo meelaha badda cas dhankaas inaa ka isticmaashay waa kaaga daba imaanayna war baabal mandab xuutiga baabal mandabkaaga laba soo mari karaa tiraadu Sacuudiga iska daayo xagga iska aaday maxaa u daba socotaa maya Sacuudi ma ka haray dhuu taagay maxaa anaga marka hore afaareen u soo gashay wallahi wareera taagay haddaba marka aan tusoo wararkii ugu dambeeyay wargeyska la yiraahdo Al-Quds ayaa wuxuu leeyahay xuutiyiinta waxay ku dhawaaqeen caaw inay ballaariyeen go'doominta ay ku hayaan Sacuudiga waxaan gaarsiinay leeyihiin ilaa waqooyiga badda cas macnaha shimaal bahrul ahmar waa dhanka iyo Masar iyo kanaal Suways iyo marka loo socdo dhulkaas baraagiibtii meesha ay ula qaxday Sacuudiga oo meesha aaday ayaan ka daba tagaynaa ilaa warnimaka Sacuudiga waa ka qeylisi oo ka yaabiyay waxay Pakistan waco ama cid kale waa maxaan la ka cunaa anag Sacuudigii uu yaaban yahay saakay marakaba nagta laga saaray shalay garoomo diyaaradeeda laga garaacay hadda maraakiibtiisii dhankaan uu u watayo xagga uu kala baxaya waxa leeyahay ka daba tagayna xisaarka ama go'doominta aan kugu hayno waa ballaarinayna tawsiica ku sameeynayna waa ballaarinayna meel aan ku baxsan karta male xaggan hadaa aado nagta halkan nagta meesha gurigaaga fadhi Sacuudiga indhaha ka soo haray markaan waa la yaabaya kollay berito isaga iyo Pakistan markay shiraan
bal wixii ka soo baxa aan aragno. bal xaalku ma fiicna, xaaladdu ma sacuudiga xaalka kuma fiicna. waaye qodobka halkaasaan kaga gudbaynaa. qodobka kale ee muhiimka ee caawa saaran warbaahinta caalamka gaar ahaan kuwa ingiriiska waxaa leeyahay haweeney 42 sano jirta ayaa bartamaha magaalada London waxa ay nagta kaga saartay dad halkaa maray. yaab waa la yaab. haddaba warbixino kala duwan oo warbaahinta ay ka qoreen waxaa la leeyahay 4 qof ayay si xun u dhaawacday iyadoo isticmaalaysay toorrey ayay ku weerartay. waxaa soo kale la sheegayaa weerarku inuu dhacay arbacada maanta, waxaana la sheegay saacaddu inay ahayd 12:27 xilliga magaalada London ee duhurkii. deegaanka uu ka dhacay waxaa la yidhahdaa Covent Garden ayaa la yidhahdaa, waa bartamaha magaalada, halkaasoo booliiska ay tageen. haweeney 47 sano jira ayaa halkaa lagu qabtay oo dadka nagta kaga saartay. haddaba dadka ay dhaawacday waxaa la sheegay da-doodu inay isugu jirtay 34, 39, 42 iyo 52 jir. waaye haweeney imtixaanay ahaydba, waa mushkiladay ahayd. haddaba qadka telefoonka waxaa ku jira maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeye siyaasadda caalamka iyo arrimaha UK, dhowr marna barnaamijka nagala qayb qaatay. meesha shilku ka dhacay meel ku dhow ayuu ku sugnaa qalimow duhurkii maanta markii ay wax dhacayeen. qalimow sidee wax u dhaceen nooga waran. nadar maanta waxaa dhacay dhacdo mindiyo lala dhacay dad shacab ah oo central London u soo baxay inay iska shopping garaystaan. waxaan la dhacday qof dumara oo 42 jira ayaa waxay dhaawacday mindiyo ku dhaawacday dad maaragtay magaalada wax ka joogay oo shopping iska soo baxay sida doctor iskuulada xiran. dadku sida badan magaalada u soo baxaan, waliba centerka aad ayaa la isugu yimaadaa. kabacdina markii arrintaa dhacday booliiska loo yeeray, booliiska ayaa aad ula tacaalay in qoftaasi ay maaragtay midida ka qabtaan ay dhaawacyada ay dadka u geysanayso, oo iyadoo aanan dadka uga aabiyeelayn qofka iyo noocu yaciya qof walba ay ka daba gaarto ay ka daba tagto ay midida la dhacaysay. ayaa marka dambe booliiska la tacaaleen, ay halkaas maaragtay wala wareegay midida iyadana ay arrestaareeyeen, ay xireen. marka dhacdadaas ayaa central London ka dhacday meel la yiraahdo Covent Garden oo magaalada bartankeeda. arrintaas waa arrin maaragtay kulleeyto ilaa hadda booliisku warbixin fiican oo ku tafaasiil ma ayna soo saarin, laakiin sida wararka la leeyahay waxay soo saari doonaan ay yiraahdeen warbixin ku saabsan dhacdadaas. laakiin wargeysyada iyo sida shaashadaha iyo wariyaasha iyo dadka goobjooga ay ku warqabayaan waxaa la leeyahay qof weyn ayay ahayd, waana qof dumara, ilaa hadda magaceeda lama hayo. marka arrintaas ayaa ka dhacday London, oo arrin uguba oo dumar mindi intay qaadato dadka magaalada dhinac kala marta. waa tahay qalimow ma jira wax wara oo rasmiya oo dhanka dowladda ilaa hadda ka soo baxay? ilaa hadda dowladda waxay soo saartay runtii oo daqadihii ugu dambeeyey ay sheegeen in ay tahay qof dumara oo 47 jira. ilaa haddana xaaladeeda aan la ogeyn sababta ku kaliftay, iyo arrimahaas waxay ka damacsanayd inay argagixiso tahay, arrin argagixisa inay wax kala tahay, inay iyada ay kaliya ku kooban tahay arrintan siday tahayba. marka ilaa iyo hadda dadkii meesha ku dhaawacmay qaar baa helicopter lagu qaaday, oo meesha helicopter ayaa kusoo degtay si degdeg loogu gaarsiiyay dadka dhaawacnay isbitaalada u gaarka xaaladaha aad u adag sidaas oo kale la geeyo. goobta ay kusoo degtay oo qaar baa helicopter lagu qaaday. ilaa haddana meesha way xiran tahay, booliis badan ayaa jooga, baaris badanna way socotaa. kolley dad badan oo arkayay wixii dhacay iyo waraysiyo iyo booliisku waxay wadaan inay macluumaad badan ka ururiyaan dadka ise wax u dhaceen. kolleyta ugu dambeynna ay markaa kadib ay noo soo saari doonaan se wax u dhaceen. ulajeedkeedu wuxuu ahaa ciday ka socotay, hadday kaligeed ahayd, haddii urur ay maaragtay ay ka tirsanayd iyo haddii kale, iyo waxay tahayba inay argagaxsan tahay iyo inay wax alla wixii markaa ku kalifay
iyaga ayaa noo sheegi doona marka warbixintaas ay ururinayaan oo dadka meesha goobjooga ah witnesska ah waana sugaynaa bal warbixin fiican oo bitafaasiila inay noo soo saari doonaan si aan u ogaano magaceedana kolleyta iyagaa sheegi doona maadaama qof qaangaara ay tahay xaq waxay u leeyihin magaceedana xitaa inay sheegaan marka ilaa hadda magaceeda lama hayo warbixinta waxbaa ka dhiman laakiin muddo yaroo gaaban waxaan jecelnaha in media ay noo soo gelin doonaan waxa arrintaas ay tahay iyo waxa ka dambeeya aad iyo aad buu u mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa maxamed nuur qalimow oo ah falanqeeya siyaasadda caalamka iyo midda UK uuna noo warramay isagoo jooga magaalada London waa mahadsantahay qalimow wixii kaloo warar arrimaha kusoo kordha barnaamijyada dambe ayaanu idinkula wadaag ku dambeeya oo barnaamijka marka maxaynu kusoo qaadanaynaa Mareykanka isagoon la baryin cunaqabateyn iga qaad la dhihin war waa ku baryeena la dhihin ayay waxay la soo boodeen caaw 3 shirkadood oo markii hore aan cunaqabateyn u saarnay inay xiriir la leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iran ayaan hadda ka qaadnay cunaqabateyn yaa idin dhaan ka qaada maya waxaan fursad siinaynaa wada hadalka warniba kaadu inay maraan maranbiyoodka Hormuz oo la furo wixii Iran sheegaysaaba soo baxaya nimankan hub iyo waxbay rabaan inay meesha gudbistaan wax kasta oo ay ku sirsiranayaan waa idin dayne shirkadihii waa fasaxnay leeyihiin yab waa la yaabay haddaba marka aan idin tuso wararka soo kordhay Washington waxay qaaday cunaqabatayntii ay saartay shirkado iyo hay-ado xiriir la leh ciidanka ilaalada kacaanka Iran haddaba warbixintu way sii socotay waxaa leeyahay waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa arbacadii ku dhawaaqday in la qaadayo cunaqabataynta 3 hay-adood oo la xiriirinayo inay xiriir la leeyihiin ciidanka ilaalada kacaanka Iran iyadoo la filayo heshiiska siyaasadeed in arrintan loo horseedi doono fursad lagu furo marinbiyoodka Hormuz faahfaahin lagu daabacay bogga internetka ee waaxda maaliyadda Mareykanka ayaa waxay muujinaysaa in Mareykanka uu qaaday cunaqabataynta lala xiriirinayay shirkadahaas haddaba sida uu sheegay telefishinka Fox News oo la soo xigtay mas'uuliyiin ka tirsan Mareykanka ayaa la sheegay shirkadaha laga qaaday xayiraadda inay ku jirto shirkad diyaaradeed oo la yiraahdo Fly Baghdad oo ka dhisan dalka Iraq taasoo horey loo sheegay inay xiriir la leedahay ciidanka ilaalada kacaanka Iran qaybtiisa la yiraahdo Al-Quds way marka nimankan Mareykanka waa la yaabarahay adikuna bal fikirkiina soo dhiibta warriba ku baxay aayeen cunaqabataynta waa ka qaadnay shirkadaha waa ka Iran ayaa bamba wax waran soo saaray Iran waxa leedahay ogaal cunaqabatayntii shalay waa saar maanta yaa bariyay yaa dhahay naga qaado maxay rabaan nimankan maxay u socdaan haddaba maxay idin la tahay adikuna bal soo qora warkaas ayaa ugu dambeeyay barnaamijkayga caaw haddii aad daawan barnaamijyadeedii saakay kii koobaad iyo kii labaad iyaguna macluumaad aad u xiiso badan ayaynu ku soo gudbinay inta daawatayna way ku mahadsan yihiin inta aan mar kale kulmayno asxaabay nabadgelyo